السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديد الشرف له كحرن جنرال تايو إنجلش أونلاين أكاديمي سؤال هذا مركه هراء وحنكون قد جرنا جبترك الجبرة يكون قد جرنا حندونا إن شاء الله إكزامبل كوي طبعا حالوين if هدي M element هاي 4 إن يكون element هاي 6 evaluate the following كون صوص على قيمة M سكويرن وكون أحسن N فينو حلو سي half times M N سكويرن C وحاله سي N cubic over 2M D وحاله سي radical 6mm so marka solution ayaan leenahay mid ayaan ugu shaqeynaynaa ila soco insha Allah ee marka hore ka shaqeynaynaa ee waxaan leenahay solution ee markaan ka shaqeynaynaa waxaan leenahay solution ayaan leenahay ee ayaan soo qaadanaynaa oo nala siiyay M squarean oo ku dhacsan N equal booska M waxa kugu taagan marka 4 ayaa kugu taagan square korka saar ku sii dhacsan leh booska N waxa kugu taagan 6 كماشان جوكت مرك كان سكوير جراي و 16 waxa ku dhufataa marka 6 ku dhuf okay 16 da 6 ku dhufato waxay noqonaysaa 6 times 6 36 6 saadana asaasi saadana 3 wadana 6 times 1 و 6 plus 3 96 waa jawaabtu waxay noqonaysaa marka 96 ay noqonaysaa kaliya wax ma sameeynin wax soo qaatay su'aasha ICE oo M squarean oo ku dhacsanayna booski M squarean waxa ku bedeshay 4 maadaama M ay u taagan tahay 4 kadib square aan korka saaray lagu dhuftaan lahay N oo u taagan 6 waxa square gareeyay marka 4 square gareeyay waa 16 waxa ku dhuftay 16 hadda 6 ku dhufatana waa 96 waayahay ee meeshan kaga baxaya marka waxa isla fiirinaynaa B ay isla fiirinaynaa hadana B waxaana la siiyay half ku dhacsan M N square aan la siiyay noo soo qaad marka half oo ku dhacsan M N square equal half ka ayaan soo qaadanaynaa marka waxaan leenahay equal half sidiisa loogu soo qaad booska M waxa ku bedelanaysaa 4 loogu bedel oo ku dhacsan booska oo N waxa loogu bedeshaa 6 loogu bedel laakiin square korka saar okay waxaan leenahay marka inta joogtid marka sareeyo ku dhufo waa 4 over 2 eekana waxaan dhigi karnaa by 2 1 by 2 2 2 times 1 na waa 2 waaye oo ku dhacsan 6dana square gareynayna waxay noqonaysaa 36 6da square gareyn waxay noqonaysaa 36 waxa ku dhufanay marka 2 ku dhufanaysaa 2 times 6 waa 2 alif 1 wata 2 times 3 waa 6 1 ka oo today 7 marka waa 72 ayay noqonaysaa 36 hada 2 ku dhufato waxay ku noqonaysaa 72 C ayaan ka shaqeynaynaa marka xigta waxaan leenahay solution C markaan ka shaqeynayna waxaan leenahay solution ayaan leenahay soo qaadanaynaa xarafka C waxaan la siiyay N cubic oo u qaybsan 2M aan la siiyay si wala leenahay N booskeeda waxaan ku bedelaynaa marka 6 aan ku bedelaynaa laakiin waxaan ka saaraynaa cubic loo qeybiyo leenahay 2M booskeeda waxaan ku bedelaynaa 4 ayaan ku bedelaynaa kameeshas joogno 6 waxaan isku dhufanaynaa 3 jeer 6 ku dhufo waa 36 6 kala ku dhufanaynaa marka 36 waatan hadii aan 6 ku dhufano waa 36 6 dhigo 3 wadana 28 3 wadana geey 21 210 iyo 6 waxay noqonaysaa 216 loo qeybiyay 2 times 4 waxay noqonaysaa markaas 8 so waxa dhigi kartaa 210 iyo 6 waxa u qeybinaysaa 8 u qeybinaysaa marka 2 inta saaranaysaa waa 10 iyo 6 kala gooy marka 21 16 ka jar waa 5 waa 6 inta keenay marka تدو محاكينا كنت إلى تدوها كانش تدو زديت كل في محاولة مركزي كنت إلى كالدوي سو مركز جوابتها المدن بيسي وعلى ما كان تدو أنا دو حاجة ديكسي مركز هفكر الجيزين أو يجرين تاني ديكسي سو هذا مع ذلك دي قادنا هنا دي وحنا لسي راديكال 6M N أنا لسي بس وقت راديكال 6M أو كود عسان N كده محلنا سيقول راديكال سكسو قاله 6 ده oo ku dhacsan M waxa u taagan 4 oo ku sii dhacsan N waxa u taagan 6 kadib waxa leedahay radical 6 ka iska soo qaad labada isku dhufo 4 times 6 waa 24 waa hay xasabanaysaa marka 6 waxa ku dhufanaysaa 24 lagu dhufto 6 danaano waa 4 dhigo 4 dhigo laba wadana 22 geeyo 144 waxay noqonaysaa marka radical 144 so marka therefore waxaan leenahay
radical boqol iyo afartan afar waxay ugu baxaysaa markaasi 12 ayay ugu baxaysaa xididka ka baxaysaa oo baxaya markaasi 12 ayuu ugu baxaa soo marka kulli isla faham ayaan rajeynayaa su'aasha example ku doonaad wuxuu ka koobnaa a ilaa d ayuu ka koobnaa waxaan filayaa inaad fahanteen marka video waa ku duwan yahay had iyo jeer iyo goob walba iyo goor kasta aad joogtaba waad ku ceshan kartaa tan intaan muuqaalkan la mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh